كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعشركي لبقول يشديد طبنات قيبتي شناد خلداتك بربارنتا برنامجكيني بربارنتا أوبتك waxaanu ka waramaynaa khaladka shanaad khaladka lixaad ee waalidku markay wadka barbaarnayaan marka ay galaan waxaa ka mid ah alihaanatu wataxqiir ubadkii markaa inay waalidkii ay hoos u dhigaan ama ay liidaan ama ay quursadaan ama markaa waa maxay hadallo marka aan fiicnayn oo ilmihii yasid ah oo hoos u dhigaya markaa ay markaa u isticmaalaan markaa waa maxay ama ay u adeegsadaan. waxaa la yidhahdaa marka haddaba sababta ugu weyn inta badan waxaa lahataa keenta waxaa la yidhahdaa waa cadamu sabri. waalidka sabirkiisa iyo dulqaadkiisa iyo xilmigiisu mar kasta uu hooseeyo o aada u yaryahay. waxaa la yidhahdaa mar kasta ubadkiisa macnaha afcaal ama ficilo khalkhaldan ama eryo xun uu isticmaalo weeye marka waalidka iyaga waxaa ku waajib ah baa la yidhahdaa marka oo looga baahan yahay oo dee saaranba inay markaa ixtiraamaan oo ay ilaaliyaan markaa ubadkaa yar waalidkooyaad yar macnaha ubadkaa yar marka ay dhaleen. sidoo kalena marka waxa la yidhahdaa ay siiyaan thiqatu binafs macnaa inay maxay naftooda markaa maxay ay ku kalsoonaadaanoo ayna marka dareensiiyaan awooddooda markaa ayna marka waxa la marka waa maxay ay u ixtiraamaan oo ay ka ilaaliyaan marka waa maxay awsaafta iyo waxyaaba sifooyinka xunxun markaa taasi waxa la marka ay saameynaysaa ilmaha raad weyn bay ku yeelanaysaa ilaa maalinta aad waa maxay ku bilowdid ilaa maalinta uu ka weynaanayo uu ka korayo uu reer ka yeelanayo. waayo waxaa la ilmaha markuu yar yahay macnaha waxaan isaga macnaha dee isaga maxay fahmi maayo wixii oo dee waxaa ka joogsaa samay hore waa maxay waxa xusuusima la hadda markuu weynaado oo kale markaasa waxaa lagu xoolanaya waalidkaygu taas ii samayn jireen laakiin markuu yar yahay garaadka iyo heerka macnaha maskaxiisa macnaha maxay ma gaadhsiisana markaa. hadda marka qof maanta uu 20 jir yahay markuu 10 sano jiray waalidkii wax u samayn jireen waalidkii maalin wax yar siiyey maamadii maalin iid siisay tii maalin wax yar u qabatay tii maalin maxay meel yar wax xasuusan yahay odaygii maalin mataqaanaa ul ku dhuftay ama eriyaday ama caaye ama wax ku yahay hadal xun ku yiri ama saa u sameeyey ilmuhu waa xasuusanaya. qof markuu 40 jiro 40 sano meelaha marayo oo ku oranaya anigu markaan yaraa abay waxaas noo samayn jiray way waxaasina siin jirtay abay saas noo samayn jiray baa oranaya markaa. laakiin adiga markaa waa maxay waxa laga baahan yahay in xaggaa markaa maxay aad ka fakartid laakiin dulqaadkaaga inuu ku siiyo waxyaabahan yar marka hadda ilmuhu sameynaya marka aanad eegin. ta kale aadka markaa muhiimka iyaduna waxa weeye baa la yidhaahdaa magacyada marka sifooyinka ubadka waalidka ugu yeerayaan ama u bixinayaan oo kale aadka u liitaan aadka u xun in markaa maxay laga ilaaliyo marka macnaha qofkan aad naacasiyo waad oranaysaa doqonya waad ka oranaysaa macnaha erayo aad ilmihi maxay u liidayo oo maxay ka wadhido oo waxay ka dhig karaba baad u isticmaalaysaa markaa. carabtu waxay yiraahdaan haddii aad ku celceliso baa ilmaha dameer iyo dameer ku dhalay waad ka oranaysaa bidha dameer iyo dameer ku dhalay waxay dhashaad markaa ugu celcelinaysid sifadaas markaa maxay waxay ka dhigi kartaa bay lahayd macna dameer way waxaad ku qancishay bay dhahaan annahu ximaarun ghabiy macna inuu ximaar yahay oo ghabiy yahay markaa maxay babaadi waxay dhahaan maxay aad ku qancishay markaa raw ka dhigi kartaa sidaasu inuu qayliyo marka dambe marka waa maxay dhahaan inuu macna sidii macna bacda sanateen bay dhahaan dad ku wado maalin kasta ximaar iyo dameer doqoyo doqon ku dhalay 2 sano kadib macna way saameynaysaa dhanka garaadka maskaxdiisa bay dhahaan marka laga yaabay dhahaan sida dameerka u qayliyo. inta marka laga yimaado waalidka waxaan uga baahannahay oo kale diin dad islaamaynu nahay dad mu'miniin baynu nahay inaynu marka quraanka iyo sunnadu say inoo gaargaraynayaan inaynu marka eegno. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waquluu linnaasi xusna dadka waa maxay wanaag u sheega marka dadka wanaag ku dhaha anagu macnaha war kelimatu tayiba hiya sadaqa macnaha kelmadda wanaagsan baa maxay tahay sadaqa markaa wey maa yalfidu min qawlin إلا لديه رقيب عتيد. أنا قف كنا ما حي قربيش ما حصار مركب ما حي ملاك باشارا مركز هذا الحن يقشنا أفكا وكسب بحه كقريان مركب كور عادي تمي بالجو قري
ilmaha yarna maxay dee nafsadiisii shucuurtiisii dareenkiisii marka waa maxay wad dhaawacday marka ilaahay marka wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum macnaha wuxuu leeyahay qoomniga ayaana qoom kale maxay marka aanay ku ciyaarin marka ama marka maxay dee ku dheeldheelin marka waayo casaa an yakunuu khayran waxa laga yaabaa xaqiiqa marka maxay inay ka khayr badan yihiin baa laga yaabaa qofada maanta ku dheelasho isku ciyaarto tiraahdo waxba garan maayo kan meel la gaari maayo kan waxna soo saari maayo maybe inuu kaa fiican yahay beri ka maalin inuu meel sare gaaro dhici karta maxaa sameyn beri ka maalin qofkaas meel sare gaaro isagii macallin noqdo isagii dad soo saaro isagii madaxweyne noqdo wiil noqdo qofkaas maanta adnaad halkiisii taagan tahay dee waka marka marna waa maxay waxa soo socda ma ogid marka maanta inta uu yar yahay si wanaagsan marka waa maxay u maalgasho marka oo hadal wanaagsan beritooda ugu haysto fiican ku dhig marka nabigu calayhi salaatu wasalaam markale waxa uu lahaa ittaqi nnaara walow bishiqi tamratin faman lam yajid fabikalimatin nabigu wuxuu yidhi naarta iska ilaali macnaha jeex timirna allaha ka dhiga marka jeex timirna ha noqotee jeex timirtiis markaa iskaga ilaali haddiina intaa heli karinna fabikalimatin dayiba kelimad wanaagsan isticmaal marka wax wanaagsan marka waa maxay isticmaal marka qofka waalidka waxaa looga baahan yahay hadalkaada markaa isticmaalaysa ama qaladka markaa ilmahaas uu galay wax waqtigeeda kooban marka waa maxay ku xadidan maanta hadduu moolka yar jabiyo waa maxay uu quraadii laga jabiyo waxbarashadii aadi waayo kubad soo ciyaaro marihii waa wax yar short time weeye intaa yar bay ku xadidan beri wax laga yaaba maxay maalin kale cusub baa dhalanaysa inuu kasii fiicnaado marka daqiiqadaha iyo secondeskaasi hadal xun ha u isticmaalin marka dulqaadkaaga marka xij aayadaha iyo axaadiista qur-aanka waxaas marka maxay diintu marka waa maxay ihaanada iyo duleynta yeeshada marka waa maxay kaa joojisa marka kaa xidho weeye marka waxyaaba aadkee noo saameeyo waxaa kamid hadda waxaa aragta dhalinyaro badanoo waxbarashadii oo kamid hadhow soo weynaadaan ama aan qur-aanka soo iyago meel dhexe maraya kaga tegey waxbarashadii meel dhexe kaga tegey waxbana aan ahayn marka maxaa saa u samayso wuxuu ku leeyahy warniyo macalinkii baa berigaas i dilayo berigaas ay ugu dambeysay buu ku leeyahy anu qur-aanka inaan dhigto anoo kahaf maraya anoo isla maraya ka tegay buu ku leeyahy macalin mid baa ku leeyahy macnaha maxay aniga hooyada saas berigaan inaaxisay baabaha iyada baan axisiyay maalin kasta beri markaan imaadii garaaci markii dhan iskaga tegayo iyada baan iska adakaasaan kusoo garay macnaha maxay maba soo dhiganba dhibaatooyin aad u badan baa qisyo badan aad u badan baa jira waalidka wax looga baahay markaas inay marka ay u samraan marka waqtigaa yara kooban ee waqtiga markaa maxay ay barbaarinayaan wallahu aclam